xaflad loogu dabaaldagayo maalinta xornimada Soomaaliya ayaa waxay ka dhacday waqooyiga magaalada tan London. konton sano ayaa ka soo wareegtay markii xornimada ay qaadatay Soomaaliya isla markaana calan Soomaaliyeed uu ku soo biiro calamada adduunka. isbuucan inuu ku jirno ayaa ku weyn dadka Soomaaliyeed iyadoo 26 Juun ay tahay markii gobolada waqooyi ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska. 20 Juun waxaa loo dabaaldegaa xornimada Djibouti oo ku aadan 33 sano ka hor. isbuucan ayaa waxaa si isdaba jooga u dabaaldegayay dadka Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaane ilaa haddana way socotaa xafladaha loogu talagalay damaashaadka maalinta farxadda leh ee 1 July. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen fanaaniinta qayladaan iyo waliba jaaliyada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada tan London ayaa ahayd mid ka duwan kuwii horey loogu qabtay magaalada tan London. heeso iyo hadal ku salaysan taariikh ayaa si isdaba joog ah waxay uga dhacayeen madasha xafladu ay ka socoto. awalan waa waajib qaran oo binaha 1 July waajibna wada saaran way dhamaanteen inaan ugu dabaaldegno midnimada Soomaaliyeed kooda Luulyo wax sahlan ma aha marka midnimada iyo qiimaha ay leedahay inaan si dareen oo cumqi u fahamno islaamkana aad u qabaa midnimada Soomaalinimadana waxay ku jirtaa ay ku taagan tahay midnimada hadii aan kala taaganahay waxa ma tareen waa taqaanaa dardarigan taaganahay ciilkaygu reebay calanyahow casuumadan u dhigay ceebtooyga raacday Soomaaliya dib u heshiiyo dib u heshii adduunka hareer ka raac dantaadana hoos u eeg hubkaan dhiga idinku hilan dhib baa idin haysatee heshiiya ilaa hortiis. waxaan ku yiri dhibka Soomaaliya ka dhacaya iyo xogta aan hayo ee aan London ka hayo ee dhibaatada haysata marka la isku kabo hadii qayladaan waa waray inaan iraahdo waajib weey عرضنا الدول كرا وهرايا هدانا نقولن gabi ahaanba dadkii ka soo qayb galay xafladan ayaa waxa iga muuqday wajigooda farxad dheeraad ah isla markaana waxa indhahay ku dhacayeen calanka Soomaaliya oo ay markaas dadku babinayaan ama se waxyaabo kala duwan sida fanaanadaha oo markaas lagu soo xaray calanka Soomaaliya dadku ku labisan yihiin. mar aan la hadlay dadkaasi ayaa waxay ii sheegeen in qaarkood ay ka gubanayaan dhibaatada haysata ama se murugta uu ku jiro dalkeeni hooyo. Cirro, Universal TV, North London.